mudanayaasha baarlamaanka Puntland oo ku guda jira kalfadhigooda 39aad ayaa maanta kulan ay yeesheen waxay kalsoonida kala laabteen golihii wasiirada Puntland kooramka ay soo xaadireen 57 xildhibaan ayaa waxa shir gudoominaya gudoomiyaha baarlamaanka Puntland Axmed Cali Xaashi waxaana la hor keenay mooshin ay ku sixinaayeen in ka badan 40 xildhibaan gudoomiyaha golaha wakiilada Puntland Axmed Cali Xaashi oo furay kulankan ayaa ka codsaday xildhibaanada inay si waadaha codka kalsoonida ugu qaadaan xukuumadda waxaana codka kalsoonida kala laabtay golaha xukuumadda Puntland 47 xildhibaan waxaana ka aamusay 9 xildhibaan halka hal xildhibaan وديدي أحمد علي حاشي قدوميها برلمان كبنتلان أيا كل واقع إن سيداسي حلبان ضوي كالسوني دوغال لابتين كلها حكومة داي بنتلان تباحي كالسوني كالمشارة كلها وسيرنا سلام وحكوعة من وسيرنا هذا الشيء حسان بلاك قاضي مدحونا لأنه كسوينه وسيرنا صوبك عابلا آليات الناس الشيء وإنه يحبنا نوعي ويزلتوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبadaas ay qaadeen mudanayaasha baarlamaanka Puntland ayaa waxa soo dhaweeyay qaar kamid ah shacabka ku dhaqan magaalada Garowe 18 bisha tan toddobaad waxay fudhay albaab cusub waxay leedahay xuskeeda gaarka waxayna tahay maalintii ugu weynayd oo isbedel dalka uu ka dhaco oo baarlamaanka Puntland uu shaqeeyo oo ay hawl adag qabteen dalka iyo dadka waxay ku leedahay xus gaar ah waxaana lagu dooran doonaa maalmaha la xuso haddii ilaahay yiraahdo maalmaha la xuso 18 bishan toddobaad waxay noqon doontaa maalin xus gaara leh reer Puntland ku leh Soomaaliya ku leh waxaan u arkaa baarlamaanku inay shaqo waajiba oo dastuuriya oo ay lahaayeen qabsadeen hadaysan xaq u lahayn xukuumadda ma aysan rideen 66 qofna waxay ka yimaadeen 4.5 beel walba haday ka soo cabatay wasiirkeedina waxa la oran karaa waa in iska tagaan raalli ahaadaan waaye madaxweynaha waxaan leeyahay madaxweyne markasta waa guuleysanaysaa insha Allah guul baan ku rajaynaynaa laakiin madaxweyne hal mid baan kala dardaarmaynaa madaxweyne naga daa ninkan qurba joogta oo baasaboorka sita iyo odagan duqda aad masuulka nooga dhigaysid hadaan mahay dhalinyarada cid feedback ku celinaysa ama cid wax ka soo hoosqaaysa cabashadooda qabanaysa uga jawaabaysa waxa ay rabaan waan xafiisyada ka furan baaxtaa wasiir ka ah dawladda Puntland marka waxaan oran karaa madaxweyne ka fiirso cid aad magacaabaysid waa inay noqotaa cid aqoon-yahan dareemi karta qofka dhalinyarada ah xuquuqda uu leeyahay haddii ay shala ansixiyeen maantana ay ayagu kalsoonidii kala noqdeen awooddii shala ay ku ansixiyeen ayay maantana ansax ku tahay kalsoonida in lagala noqdo baarlamaankuna waa hay'adda xaqa u leh in ay ku samayso wixii loo igmaday dabagalkeeda iyo wax ka qabadkeedaba sidaa darteed waa sharci arrinta ay sameeyeen baarlamaanku waa shaqadoodii waxaan rajaynaynaa insha Allah madaxweynuhu inuu soo magacaabo xukuumad kale oo tayo leh kana tira yar midii hore si dalkana wax loogu qabto dadkana wax loogu qabto waxyaabahan hadda dadku ay boomboonayaan ma aha wax la boombooniyo golaha wasiirada waa la magacaabi karaa marka la magacaabo laftigeeda ayaa golaha baarlamaanku xaq waxay u leeyihiin cidda ay u gartaan inaysan xilka ka bixi karin inay diidaan waxaan aad iyo aad mahad ugu celinayaa xildhibaanada baarlamaanka hawsha ay qabteen waxa weeye anagu haddaan shacab nahay waxaan dooranay xildhibaanadana ayaga doortay madaxweynaha iyo dawladda marka waxa weeye inay la xisaabtamaan oo hawshaas ay mar hore u qabtaan ayaan aad iyo aad ka rajaynaynay hadda haday qabteen aad iyo aad baan ugu faraxsanahay anigu qurba joogta dibadaha ka iimaanaya waxaan aad iyo aad jeclahay in aysan xilba loo dhiibin maadaama waxa weeye baasaboorada ay wataan dadka ay ku gumaadayaan weeye waxa weeye dad wadanka u dhashay oo wadanka jooga ayaa waan xilka loo dhiibay ayaga xogogaal ah ayaga wax kala wadi kara nin baasaboor dibad ka soo qaatay oo qaxooti ku tagay in uu wadanka haddana xukumo anigu taas waa ka soo horjeeda aad baan ugu soo horjeeda arrintan ayaa ku soo aadaysa xilli dhawaanba shacabka qaybihiisa kala duwan ay dhaliilo ku jeedinayeen baarlamaanka Puntland taasi oo ku salaysan in baarlamaanku aysan waxba ka qaban xaaladda Puntland ay sii xumaanaysa Cabdi Fataax Cabdullaahi Kalsan TV Garowe